ومالك 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 maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay markii qarsoona السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمان أصحاب توان والسلام عليكم سو هذا channel كسومالي كوبينت كولج عشرة كلا دوان أو كساب برشاد اللغة الإنجليش عشرة كلا halkan كلا socotaan cashirkani labaad ayaan maanta qaadanaynaa ee ku saabsanaa buuggii baro English asxaab badan ayaa isoo weydiisay buuggaas baro English buugga waxaan soo dhigay telegramka channelka asxaabta ku jirto ayaan soo dhigay marka hadda link aan hoos in kula wadaaga hadda link ma hayo wali website ma soo gelinin laakiin buuggaas waxaan soo gelay telegramka linkiisa ayaan videogan hoostiisa in soo dhigayaa marka buugga markaa rabtid link telegramka soo gelaysaa buugga halkaas ayaad ka arkaysaa casharada u dambeeya soo gelay ayuu kamid yahay marka sidaan horey u sheegan cashirka waxaan ka bilownay beginners buugga saddex qayb u qaybsan qaybta koowaad qaybta labaad qayb saddexaad marka hadda qaybta koowaad ayaan ku jirnay cashirkiisa labaad ayaana qaadanaynaa qaybta hore waxay noo joogtay you seem lost macnaha ciyaar baad wax baa la sameynayo ciyaar game wax baad ciyaaraysiin qofkii laga sii raynaan aragtay kaas waxaa tiri you seem lost macnaha inaad laga raay macnaha inaad luntay u egta macnaha you seem lost ama qof yaro jidka taagan cunug yaro indhaha taagtaagan qof cirka taagan aragtay kaas waxaa tiri you seem lost waqti inaad lunto macnaha xaaladda ku jirto camal maxaa tiri you seem lost I feel happy farxad ayaan dareemay I feel happy farxad ayaan dareemay try again mar labaad isku day try again mar labaad isku day mar kale isku day leave ka bax ama leave orod camal I will leave waan tegayaa macnaha I will leave waan tegayaa waan baxayaa call me so person waa qof this person is happy qofka wuu faraxsan yahay this person is happy macnaha qof ayaad ku aragtay sawirkiisi Steve waxaad ka aragtay this person is happy ama caadi u aragtay qof maxaa ka saatay this person is happy qofka wuu faraxsan yahay this person is happy qofka wuu faraxsan yahay this person is happy qofka wuu faraxsan yahay marka person waa qof kaligiis ah jamac marka noqoto waxay noqonaysaa people marka mufradka iyo jamaca macnaha kaligiis iyo iyadoo badan waxaa isku noqonaysaa person people the man is nice ninkan uu fiican yahay the man is nice ninkan uu fiican yahay qof ragga ayaa macnahaas ku hagaajiyo oo si fiican kuu sooray markaas adoo magaciisa waxa sheegay maxaa tiri the man is nice ninkan uu fiican yahay the woman is young naagta waa yarta ama islaanta waa yartahay the woman is young haweeneyda waa yarta camal adoo erayaal qaar waxaa jira soomaalida ay erayada kala kaxoogo ka yar isagoo wax macno weyn kusii fadhiyin ayay soomaalida macnaha wax yar ceeb u yarka marka naag hadii loo dadka si fiican arka laakiin naag waa iska haweeney gabdhaha badanaa erayga naagta ma jeclo waa erayada xaquuqdooda lagu tunta ay kamid tahay okay the woman is young islaanta waa yartahay child cunug the child is small cunuga uu yaryahay the child cunuga is small uu yaryahay time waqti the time is 7 am waqtigu waa todobadii oo subaxnimo 7 am the time is 7 am what is the time ayaa lagu yiri markaas waxaa tiri the time is 7 am saacadda waa ama waqtigu waa todobadii subaxnimo week waa asbuuc a week is 7 days asbuucu waa 7 beri okay day this is a good day tani waa maalin fiican way come this way dhinaca soo mar macnaha intii ma come this way macnaha waa qof jahan ku tilmaamay come this way inta soo mar ama think waa shay what is that thing muxuu yahay waxaas ama shaygaas muxuu yahay what is that thing maxaa waa shaygaas
world waa adduun, the world is big, adduunku weyn yahay, the world is big, world waa adduun. Hand, my hand is clean, gacanteeda waa nadiif. But I like this part, part waa dhinac macnaa qeyb, I like this part dhinacan waan jeclahay, qeybtan waan jeclahay, I like this part. I waa il, my eye is open, isheeda way furanta. Okay, government, okay, place, this is the place, place meel waay, this is the place, tan waa meeshi macnaa qof baad soo waday meelaad tusoo rabto waxaa waa tusta meesha waxaad farta ugu fiicantay, this is the place, meesha waa meeshi, waata meeshi macnaa this is the place. Work, shaqo, my work is important, shaqadeeda waa muhiim waay, my work shaqadeeda is important waa muhiim. See, wax fiiri, I see you a point, macnaa pointkaaga ra'yiga waan arkaa camal, I see you a point, I see your idea camal adoo dhahawa. Government, dowlad, I like the government, waan jeclahay dowlad, I like the government, dowlad waan jeclahay. Company waa company, ha company is new, companygeedu cusub yahay. Number waa number, this is my number, kani waa numberkayga. Group, the group is big, groupku weyn yahay macnaha waa 5 qof iyo ka badan 20 qof camal waa badan yihiin, marka groupka wax badan ka kooban maxaa tiro the group is big, wuu weyn yahay, the group is big, groupku weyn yahay. Problem, dhibaato, I have a problem, aniga dhib ayaa haysta macnaha, dhib ayaan haysta macnaha xisaab iyo waxbaad xallin weysay ama arrin baa xoogoo si kaa yar noqoto markaas waxaad tiri I have a problem, aniga dhib ayaa haysta macnaha, ilaahay dhib hanaga hayo insha Allah. Fact, that is a fact, taas waa xaqiiq, qof baa wax kuu sheegay sida adiga ogeyd kuu sheegay markaas waxaad tiri that is a fact, taas waa run, that is a fact, in fact camal that is a fact, taas waa run. Preposition with example phrase, kuwan waa prepositionki, kuwan waa phrase, marka to ayaa waxaan isticmaalnaa go to work, shaqada aad to sida loo isticmaalo ku aragtaan ma go to work. Of, a lot of people, dad badan. In, get in place, macnaa meel gudaha loo galay. For, come for the day, macnaa maalintaas imow, come for the day ama maalinta imow, come for the day, qofka habeen ku imaan waxaa tiri come for the day, maalinta imow, come for the day. On, be on time, waqtiga ahaa macnaha waqtiga ku ahow, be on time macnaha soo daana soo dabdhacan, be on time xilligeeda ku imow ama ahow. With, stay with my child, la joog cunugeyga, stay la joog with my child cunugeyga. At, good at work, shaqada ku fiican, at work. By, wait by the car, wait sug by the car gaariga. From, I am from New York, waxaan ka imaaday New York. Up, go up to the place, kor aad macnaha go up, kor aad to the place, meeshaas aad. About, tell me about life, isha wax ku saabsan nolosha, tell me isha about life, wax nolosha ku saabsan. Into, come into work soon, shaqada imow si macnaha dhaqso, soon dhaqso. Over, go over there next week, xagga aad macnaha asbuuca soo dhaaf, go over there next week, asbuuca soo socda xagga aad, go over there next week, asbuuca soo socda xagga aad. After, call me after work, soo wac shaqada ka dambe, call me soo wac after work, shaqada ka dambe. Okay, tana waa common English vocabulary words waay tana. The child cunugi, and woman and man and woman, nin iyo islaan. A day, that place, meeshaas. I like you, waan ku jeclahay macnaha I love you adoo dhaha camal, marka I like you waxa waaye waa informal, macnaha qof oo waxba isku keen gelin I like you waa dhihi karta, laakiin qof markaad dareen ahaan u sheeganayso I love you macnaha waa dhihi kartaa qof oo xiriir isku keen xiriir inka dhexeeyo, laakiin I like you waa iska just like caadi, waa iska informal. It is nice, aad u fiican tahay. Not my place, meesheeda maaha, not my place, macnaha galaas baa soo gashay meeshaadoo la fadhiya aragtay qof kale wuxuu ku dhahay xagga fadhiiso, no, not my place, meesheeda maaha. He is nice, wase wuu fiican yahay. As a child, caruurnimo, as a child ama ka cunug ahaan. You are nice, waad fiican tahay. This is the place, tan waa meeshi. But not today, laakiin maaha maanta, but not today, maaha maanta. His car, gaarigiisi. They are here, ayagu waa intay joogaan, dad baa la raadanaya. Have you seen Ahmed ayaa lagu dhaha, markaas waxaa tiri they are here, intay joogaan. She is nice, ayadu way fiican tahay. She is nice. Or yes or no, ha ama maya, yes or no, ha ama maya.
an eye for an eye العين بالعين معناها إل كإل an eye for an eye will I will call you waan ku soo wici my first job shaqada ugu horreysay one at a time hal one at a time all the time all the same معناها okay sorry all the same معناها waxaan isku mid waay all the same wool I would like that taas ayaan jeclaan lahaa there is a place to stay meel la jooga ayaa jirta there is a place to stay meel la jooga ayaa jirta okay. Their home is nice gurigoodu fiican yahay their home is nice gurigoodu fiican yahay part of speech ayaan gelaynaa waana soo gaaban casharka part of speech inta ugu horeysa ayaan soo qaadanaynaa part of speech macnaha the classification waa kala soocitaanka of words erayada categories qayb noocyo loo kala soocay by their roles iyaga roolkooda shaqadooda and function shaqadooda sorry asxaabay qeyl yaraa deriska sorry guys okay within their structure of the language ka dhexdiisa structure-ga loo qeybiyo jumlada erayada dhexdeeda ayaa la yirahdaa part of speech in Englishka there are 8 part of speech waxaa jira 8 noocood of part of speech maxaa kamid ah noun waxa waa magac asub ah noun waa magac meel ama magac dad ama magac xayawaan ama magac shay sida Ahmed Ali Muqdisho Kenya Nairobi Cap house lion elephant all types of noun oo magac dhan oo dhamaantiis waxaa la yiraahdaa noun ayaa la yiraahdaa what's noun hadii lagu dhaho maxaa dhahaysaa noun is a word noun waa eray use loo isticmaalo to a name what's a noun hadii lagu dhaho a noun eray nounka is a word waa eray use loo isticmaalo to a name in lagu magac bixiyo a person qof animal xayawaan a place a meel think shay an abstract idea iyo fikrado noun magaca kan function wuxuu u shaqeeyaa in a sentence jumlada as a subject faacil ahaan ayuu u shaqeeyaa meesha faacilka ayuu dhacaa an object faacilka or object of a preposition ama object of preposition ahaan ah waxaas dhan waan u imaan doonaa tusaalooyinka ayuu bixiy wuxuu yidhi gaal book mary paris gaal waa gabar book waa book mary waa gabar magaceeda paris waa caasimadda faransiiska bard waa shimbir education waaye magaceeda okay love waa sidoo kale waa magac marka all those waxa waaye noun ayaa la yiraahdaa okay fartayna arkaysiin ma garanayo okay bal aan dheereeyo wax yar nounka ayaa wuxuu kala baxay intaanu magac wuxuu dhahay nounka wuxuu kala baxaa proper noun common noun concrete noun abstract noun countable noun uncountable noun collective noun compound noun proper noun waxa waaye magaca caadiga identifies a particular person or things waa magaca meel ama shay oo runta ah sida John ama Ahmed Bob London Australia magacooda runta ah saxda ayaa la yiraahdaa proper noun common noun waa magacayaasha la isla leeyahay class of persons dad oo koox ah place meelyaal or things shayyaal sida boy girl boy wiil oo dhan waa wiil waaye boy ama Ahmed haw ama Hussein haw adiga waa boy girl any kind of girl waa gabar kasta ma ayaa la yiraahdaa girl mobile kasta man nin kasta woman islaan kasta toy waxa ilmaha ku ciyaaraan bag boorso kasta sita caasimad kasta sita ayaa la yiraahdaa kuwaas waxaa la yiraahdaa common noun magacayaal la isla leeyahay waa common lagu yahay concrete noun waxaa la yiraahdaa any physical things that exist in the world physical waxaa la yiraahdaa waxa la arkayo oo la taabanayo ayaa la yiraahdaa physical features ma kusoo barateen iskuulka marka waxaa la yiraahdaa any physical things wax kastoo physical ah that exist ee ka jira in the world adduunka ayaa la yiraahdaa concrete noun maxaa kamid ah dog pen paper voice tears table ayaa la yiraahdaa physical abstract noun maxaa la dhahaa those nouns that do not physically exist in the world ayaga adduunka ma joogaan physical lama taabanayo sidoo laakiin magac ahaan waa la maqli love hadda jacayl ma taaban kartaa hate nacayb ma taaban kartaa pain xanuun ma taaban kartaa grief anger xanaaq happiness farxad sadness confusion waxaa la dhahaa abstract noun waa magac aan la taaban karin laakiin jiro waaye
countable nouns magaca can be counted waxa la tirin karo pen pencil book waa la tirin karaa 500 book 600 book man dadku waa la tirin karaa magaalada 1 milyan ku nool China intaas u bilyan sita caasimadaha hair stas coin waxaas waa la tirin karaa uncountable noun iyaga lama tirin karo that cannot be counted lama tirin karo honesty love hate milk water money furnitures okay so waxaas dhan lama tirin karo sugar collective noun a group of person waa ku magacyal oo collective la socda place waa dad ama meel ama shay people dadka ama waa collective hada waxay u yimaadaan bilaadan kasta people alla crowd team amig ciidan class alla collective noun compound nouns maxaa waaye noun that is made magaca ka qaybsamo with two more than two words magaca laba qaybood oo laba eray ka koobma class hadda fiir glass marka la kala geeyo waxay noqonaa glass iyo room waa qol glassna waa macnaha waa isna waa bahalka marka waxay noqonaysaa classroom si tusaalaan blackboard set belt suunka la xirto bedroom bed waa sariirta room waa qolka post office waa waxa la post gareynayo office waa xafiis post office ayaa la yiraahdaa magacayaashan labada uu kala dhaco isku xidhan ayaa la Soomaali waxaa maqal hal eray oo sida hadda ku tusaaleen ku si waxaa waaye sida maslax ama waa maslax okay shoelace suunka boodka lagu xirto ayaa la shoelace heartbeat naqra heart beat ay ku qabay kuwaas ayaa la compound noun ayaa la yiraahdaa okay asxaabay waxaan filayaa inaan hadda inta ku soo gabeyno NB wuxuu yiri faahfaahin intaas ka badan nounska casharada hoose ku imaanayaan haduu Ilaahay ka raali noqdo marka casharkeena xiga haduu Ilaahay ka raali noqdo waxaan ka bilaabeynaa proper noun video ugu dheeraanin insha Allah taala هذا يعني سلام يا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته